السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أهليبان حسن موسى iyo qaybta aad nagala socotaan Facebook oo ah Liibaan Xasan Muuse. Soomaaliya waa dal ay ka dhasheen geesiyaal aan la tirin karin. Hase ahaatee waxaan isku dayaynaa inaan soo koobno barnaamijyo kooban oo aan ku soo koobi doono geesiyaasheenii hore ee taariikhda xustay. Dhul kastoo Soomaalidu degto waxaa laga helayaa halyeey iyo geesi aan xasuusta Soomaalida aan marnaba ka go'in. waana dhul ay ka dhasheen rag iyo dumar u taagnaa karaamadooda, diintooda iyo xorriyadooda. haddii aad taariikhda dib u jaleecdo waxaad arkaysaa rag iyo dumar naf iyo dhiigba u huray inuu dhulkoogu ahaado dhul diintooda, dadkooda iyo sumcadoodaba ku faanaa. waxaa jiray Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo ahaa ninkii ugu horeeyey ee abaabulay kacdoon qarannimo leh oo ka dhan ah gumaystihii Ingiriiska. codkiisa iyo gabiyadiisa kaliya ayaa ahaa kuwa ka xoog badan rasaasta iyo midida. xawataako ayaa ahayd astaan dumar Soomaaliyeed oo u dhimatay iyaduna xorriyadda dhulkeega. dhiiggeedu wuxuu noqday astaan muujinaysa inay xorriyaddu ayna ku iman hadiyad, laakiin ay tahay mid qadhaadh iyo kuleyl lagu keensado. dhinaca kale, Imaam Axmed Gurey, halyeegii Soomaaliyeed ee dagaal weyn la galay boqortooyadii Xabashida iyo reer Yurub ee uu yimiday inay diinta iyo dhulkaba tirtiraan. dagaaladii uu hogaaminayay waxay noqdeen astaan ku salaysan muslimiinta bariga Afrika. halyeeyadu maysan ahayn kuwa kaliya dagaal ku caanbaxay. waxaa jira halyeeyo kale kuwaasoo maskax, hal-abuurnimo iyo hoggaan ku dhisan, sida culimmadii, sugaantii iyo odayaashii nabadda. dadkaas waxay mideeyeen, baraarujiyeen oo dhiirigeliyeen bulshadii Soomaaliyeed ee xilligaas adag soo maray. maanta magaca halyeey kaliya maaha aha ku lagu xasuusto dadkii hore, balse waa magaca inaka laftirkeena aan qaadi karno haddii aan u istaagno cadaalad, qarannimo, midnimo iyo isku duubni. qof walba oo wax dhisa, wax barta ama dadka wax bara waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay halyeey Soomaaliyeed. barnaamijkan waxaan toddobaadyada soo socda ku eegi doonaa halyeey kasta, mid kasta oo raad ka tegay, si aan u baranno, u xasuusnaano, una sii wadno waddadii ay mareen. waxaan ahay Liibaan Xasan Muuse, waana barnaamijkeenii halyeeyada Soomaaliyeed. ilaahay ha u naxariisto kuwii inaga horeeyey, inakana ha inooga daba naxariisto. asalaamu calaykum.